waxaa magaalada Jijige ee caasimada deegaanka Soomaalida soo gaaray wafti ka socda jabhadda ONLF oo hogaaminaya afhayeenka rasmiga ah ee jabhadda Mudane Cabdiqaadir Xasan Hiirmooga Cadaani waxaana garoonka diyaaradaha ee Garaadwilwaal ku soo dhaweeyay taageerayaasha jabhadda ee ku sugan Jijige oo aan u kala hadlay soo dhaweynta waftiga ONLF iyo waliba mas'uuliyiin ka socota heer deegaan. haddaba afhayeenka jabhadda oo aan soo dhaweyn kadib waraysi la yeelanay ayaa waxaan ka waraysanay ujeedka socodkooda iyo sidoo kale arrimo gaar ah oo ku saabsan qorshaha jabhadda iyo waxyaabihii ka soo baxay shirkii dhawaan ka qabsamay magaalada Asmar ee caasimada waddanka Eritrea ay wada yeesheen jabhadda iyo dawladda Itoobiya oo hordhac u ahaa shirka rasmiga ah ee ay ku wada xaajoon doonaan jabhadda Jowxa iyo Itoobiya. waxaan soconay salaamida dalkanaga iyo dadkanaga iyo fidinta heshiisyadii isafgaradka ahaa iyo mideynta dadka Soomaaliyeed iyo mideynta jabhadda maamulka iyo shacabka Soomaaliyeed oo muddo kala daadsanaa inaan muxuu ahay dib u midowno oo wadanaheena ka tashano oo shacabka Soomaaliyeed mideyno oo fariinta jabhadda gaarsiino oo nabad gaarsiino oo iskaashi gaarsiino hadafkaygu saas waa muddo bil ku dhow ama ka badan waxay joogteen caasimada dalka Itoobiya Addis Ababa qorshayaasha joogteen iyo bal waxyaabaha dawladda ku hadlaysan maxay waxaa kamid ah inaan kalsoonida dhisno inaan mideyno dadka Soomaaliyeed waan la kulanay duqeyda gobolada markay shirarku Addis Ababa ka dhacayeen aqoon-yahanka dhalinyarada waxaa kale oo tagnay gobolka Shinile iyo magaalada Dirdhaba waxaan ka qayb galay shirar isbahaysiga aan kamid ka ahayna Oromada iyo muxuu ahay Sidaamada Benishangolka isbahaysiga la yiraahdo BAFD marka hawlo badan oo siyaasi ah iyo hawlo wada hadal ah iyo hawlo mideyn Soomaaliyeed ah iyo dibadhiska maamulka Soomaalida hawlahaas aan u joognay muxuu ahaa dhisada waxaa jiray wada hadal ay dadku deegaanka Soomaalida ay dhagaha u taagayeen oo ka dhacay Asmar oo dhexmaray idinkii dawladda Itoobiya bal wada hadalkaas maxaa ka soo baxay qorshayaasha ka soo baxay ama waxyaabaha isku afkaratay dawladda Itoobiya wada hadalkaas dawladda dhexe iyo ONLF dawladda muxuu ahaa gobolka iyo ONLF u dhexmaray si aad u fiican oo qoto dheer bal isku afgartay heshiis hordhac oo is afgarada la gaaray faahfaahintii iyo muxuu ahay qodobadii faahfaahintoodii kuwii muhiimka ahana wuxuu dhici doonaan mar dhow hadii la yiraahdo muddo 2 isbuuc ugu badnaan ama ka yar ayaa dhici doonaan markaas afgarad weyn baa ka dhacay halkaas sidii jabhadihii kale ee saaxiibada ahayna Eritrea joognay muxuu ahay halka loogu hadlay oo kale bay ahayd aad baan ugu faraxsanahay dad Soomaali ah oo dawladda dhexe matalaya dad Soomaali oo dawladda gobolka matalaya dad Soomaali ah oo xuquuqda iyo gobonimada dadka Soomaalida u dagaalamaya meel ku kulmay marka isfahanku inuu dhib yar yahay halkaas ka garanaysa waxaa jira dadka qaar ayaa aaminsan in ONLF ay isdhiibtay kadib markii aad gudaha soo gasheen ee ciidamadii xilka ku jiray ay gudaha soo galeen arrintaas iyada bal maxaa ku caddaynaysaa anaga iyo maamulka midkan isma dhiibin maamulkuna isma dhiibsana anaguna ismaanaan dhiibin dadkanaguna isdhiibi maayo xaq bay u leeyihiin xaqooda siyaasiga ay ka talintooda xaq bay u leeyihiin midnimadooda xaq bay u leeyihiin dib u dhiska dalkooda xaq bay u leeyihiin inaan iskaashano xaq baan u leenahay inaan midowna xaq baan u leenahay in la iscafiyo oo la isku duubnaado xaq baan u leenahay marka ONLF wax iska bedelay mawaqifteeda ma jiro siyaasadda Itoobiya horumar badan bay sameysay xagga xuquuqaha iyo ay ka talinta iyo xorriyadda ummadaha dawladda Itoobiya horumar badan bay ka sameysay marka wax isdhiibida ma jiro wax naga dalbaday isdhiibidna ma jiro wax naga dalban doonana ma jiro maamulka iyo anaguna isku aragti baan ka ahayn siyaasiyiinta Soomaalida anagu isku aragti baan ka ahayn maanta dadkeena waxay gaareen heer bisayl ah oo aayaha iyo maslaxada iyo midnimada iyo ujeedada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed isku si loo arko marka isdhiib iyo waa la isdhiibay iyo isu dhiibid way dhamaatay sideeda ilaa iyo hadda xeerada ugu weyn ama xarunta ugu weyn ee biiska waa ciidamada jabhadda waxay ku taala waxde waa dalkeena weeye waa dalka Soomaalida ogaadeynaya ama Somali state weeye inta badan waan joognaa ciidankanaguna waa 10 milyan oo shacabka Soomaalida kaasa ciidan oo ah marka weligeena ciidan ma naawayn markii la weydiiyay ciidamadana tirada sax ma ka sheegnaa 10 ilaa 12 milyan weeye ma dhana dadka qaar waxaa jira afayeen aaminsan ONLF magaca ONLF inuu yahay magac qabiil gaar ah matal hataa dadka maxaa ka tuxaan beenay jabhaduna xubnaheedu qabiil go'aan ma ah dalkay u dagaalamaysan dad qabiil kaliya degan yahay ma ah magaca adeegsanaysan magaca dukumeentiyada taariikhda ka dalbad ka laga dhaxlay weeye anagu si cilmaan u doodaynay heshiisyadii waddankeena lagu bixiyay ogaadeen yaa ku qoray ogaadeen ba ku qoray
heshiiskii talyaaniga ee dhex maray ingiriiska heshiiskii dhex maray xabashida iyo talyaaniga heshiiskii dhex maray ingiriiska iyo xabashida heshiiskii dhex maray muxuu ahaayey talyaaniga iyo ingiriiska daraawiishta iyo ingiriiska daraawiishta iyo talyaaniga daraawiishta iyo Ethiopia heshiisyada dhex maray kulli ogaadeen bay ku qorayaan markaanu dawladda doodayna dhulkeed maab iyo taariikh iyo waxa la rabaa midda kale dawladnimo dhulkeena soo martay hal magac bay lahayd dawlad ogaadeen aan harar governor talyaanigu sameeyay 6 sano kaliya marka dawlad ku doodayso dhulkaas aan leeyahay Soomaaliya waan iska go'in in dawladnimo soo martay marka 1935 ilaa 41 dalkeena waxa ka talinay dawlad leeyahay ogaadeen governor oo talyaanigu sameeyay taas anagu daba soconay reerka ogaadeen kuna magac waxba ma taray reeraha kale waxba ma yeelay marka waa tafsiir khaldan oo waxa weeye laga bixinayo waxa kale oo ugu bishaareyna ruuxa magaca iida u dulqaatay oo u dulqaadan la ninkay iidu dhibi weydo inay oodu dhibto aan la yaabanahay dal kale ayna haysta dhaqan kale ayna qabsaday hawlo kale ayna qabsaday ka haday la qaraadaan weyday nin gobol Soomaaliya oo u arkaba xataa inuu magaca ku khaldan yahay inuu ku xajimoodo waxa ka sahlan inuu ku xajimo magac lagu leeyahay lagu dulmay sidaadaba waad ma santay afyaan su'aasha ugu dambeysay ku weydiinay waxa timiday jijiga oo xaruntii deegaanka muddo intee dhanbaad ku sugnaanaysaan inta joogtaan ma jijiga ma joogaysaan mise gobolada dhan waa soo mari doontaan gobolada maray shinil waan soo maray alxamdulillah walaw aan in yar ka maray aan ku reenay inaan naqtiimo haddana dhammaan goboladana waan maraynaa waftiga jabhadda way iga soo horeeyay way joogaan wafti balaaran oo jabhadeed baa jooga marka goboladaan maraynaa markaan dawladdan is aragno oo aad ugu mahadnaqayno soo dhaweyntooda iyo muxuu ahay kaalmayntooda iyo maskax furnaantooda aad baan ugu mahadnaqaynaa shacbiga jigjiga aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinta saxaafadda SRTV aad baan ugu mahadnaqaynaa marka waxaan samayn doonaa inaan gobolada maro dadkeena inaan soo salaano dhul aanu waafog noogu dambeysay oo u hilowsanahay baa jira marka inaan soo wada aragno at least saasaan doonaynaa haddii eliyaado ilaa gobolka liibaan soconno kadibna caasimadaan ku soo noqonayna dhankoodana waxaan dareenkooda la wadaagnay qaar ka mid ah taageerayaasha jabhadda ee ku sugan caasimadda deegaanka ee soo dhaweeyay wafdigan Onolaf oo ay ka mid ahayd gabadh laxaadlo oo taageero u qabta Onolaf iyada oo gaar curiyaan ku socota taraag dheer u soo gashay waxaan soo dhaweynaynaa hogaamiyaha naga sare Cadaani Hirmooge waxaan heliyo hooba la garab taaganaa jabhaddanada Jowxo oo mar walba u taagan inay micnaha ma taqaanaay deegaankanagu inay xaqoodi ay helaan jabhadda Jowxo waxay diiday caburinta deegaanka loo hayo waxay ka gadooday oo mar walba ma taqaanaay ka soo horjeeda in deegaanka la caburiyo Jowxo mar walba waan garab taaganahay awal horena waan garab taagnay laakiin cabsi baan nahay hadda laakiin dareenka iyaga muujinayna معناها جبهة جوحة وجبهة النذي وطن أباهنين يا جوحة هقولي ستبان لنا مر والبنات جبهة جوحة وانقرب تاجنا هيري هو وانقرب تاجنا إن شاء الله هدول هاي لهنا ديجان كو حروبي ودفنه وحروبي وحنونا أباهنا هاي حرنيمو إن ديجان كأفتلا قاضو وديجان كمتقنا يي وحي رغان الله قلاضو وحنا وردان نور محمد عبد الله waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta filinta ugu sareysay oo koonalka ku soo dhaweynay magaalada Jigjiga waxaan leenahay ku soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay tanna waan sugaynay in badan dhibaato badan rafaad badan cadaadis badan xidid badan jirdil badan maanta inaan guushii hantinoon calanka xidhano wadankanaga ku xidhano maanta aad baan ugu faraxsanahay oo waxaan soo koobi karin farxadaas dhaxan dhib u maray dhaxan jeel u seexanay dhaxan jirdil u maray waa guusha aan rajaynayno ee sugaynay ku dagaalameynay aad baan ugu faraxsanahay mas'uuliyiinta oo ururkoona aad baan u soo dhaweynaa oo ku faraxsanahay inay soo dhawaadaan waxaan leenahay soo dhawaada Ifraax Cabdimir Baldaaw walaalkay marka dameesh waxay soo gelisay wadartaan farxad iyo maxaan ku raadayay shucuurteeda aad u kacsan bay soo gelisay halgamayaasha oo nalif dartood baan meesha u soo galay waana ku faraxsanahay inaan arko oo la kulmo meeshan waa cidhiidhis lagu soo galay way adag tahay albaabkii dadkii cagaha qayba soo galay adigoo curiyana bal halkaas aad ku soo gashay ma sha Allah da farxad bay wada ruux faraxsanna meel ma gali waayo farxad uma ku soo galay ana faraxsan baan soo galay ana isgaran loo dhex taagan uma soo galay meesha maxaa ku kalifan halkan waxay u kalifiyay inaan halgamayaashayda la kulmo oo maxaan ku raadayay oo nalif calankeeda aan arko aan xornimo dareemayade xaafadad ka timid waxaan ka dimaaday ayirdaga inta soo socto magaariga ku soo qaaday masaada soo socdo ma ana lu ku imaaday gacmaygan ku socday gaariga ma ilaa garoonka tagtay garoonkii waan meel dhaxan tagay hadana wiilal baa ii sheegay ugu yiri xaqan dhaxay joogan dib baan hadana u soo kala noqday xaaladeeda hadii aan ka waramo aniga muddo dheer aan dirdhaba la joogay family baanu nahay waa curyaano waad aragtaan in badan bay u soo maxaan ku dhahay family-ga loo dhibaateeyay iyadoo curyaano ay sida ay tahay waxa marmarka qaar kood ay jirto inaanu ku qarin jirnay maxaan ku dhahay dirdhaba
oo weliba xaafadda maxaan ku dhahay deenaadaabiyaaga laga hare qabalayga sagaalaad mise sideedaad labada intaa midba aan u dhaxayn jirnay oo mararka qaar maxaan ku dhahay aan dhihi jirnay maanaan arag oo hooyada loo dhibaateeyo iyadoo taaga curyaan ay tahay marka waxa weeyaan maanta taa aan ku sugan alxamdulilaahi rabbil caalamiin tii shalay toolayada curyaan ahay maanta habar aamis ha ooyin tii iyadoo maanta curyaan ahayd aan maxaan ku dhahay la qarin jiray ama calankeeda la qarin jiray maanta nagu simay annagoo nool inaan maanta calankii ku xaragoono maxaan ku dhahay dharkanaga aanu xidhanno waxaan leenahay on alif dad badan baa maxaan ku dhahay xorriyad in badan baad u soo dagaalanteen maanta aanu taagannahay ilaahay baana nagu simay in maalintii tan iyo curyaamintii waxay ka timid imika maxaan ku dhahay gaari ma wadin gaariga curyaankay ku socotay waxay ka timid xaasada inii sheegtay baa xaafadii aayardega marka alxamdulillah baan leeyahay habar waxbana ha ooyin alxamdulillah ilaahay baa nagu simay alxamdulillah wafdiga ONLF oo ku sii nagaan doona deegaanka ayaa waxay gogol xaad u yihiin hogaaminta ugu sarreysa jabhadda oo iman doona xilli dhow balse aan weli la shaacinin waxaana intay joogaan ka shaqayn doonaan isu soo dhoweynta iyo midaynta bulshada Soomaaliyeed iyaga oo dhammaan gobollada deegaankana socdaal ku soo mari doona